بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. waxaynu ku jirnay darskeenii sirada ahaa, waxaanaynu maraynay cadaadiskii muslimiinta lagu hayay iyo nimankii mushrikiinta ahaa oo bilaabay doodo badan oo ay kala soo horjeedeen saxaabada, oo ay isku dayeen inay tashkiik ama shaki geliyaan dadku wuxuu aaminay ama caqiidadii islaamiga uu nebigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam. waxyaabahaasi muranka badani ka dhacay maalan waxaa ka mid ahaa baynu soo tilmaamnay dhowr shay. waxaa kaloo ka mid ahaa baynu leenahay suuratu ruum maalan siduu xadiidkii tirmidi sheegayo markay qaybta hore soo degtay ee suuratu ruum alif laam miim gulibat iruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayaglibuuna fii bidci siniin. suuraddaas markay soo degtay qaybteedaasi hore oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamayo ruum in la jebin doono oo fii adna alard lagu jebin doono kadib intay guulaysteen muddo dhowr sannadood gudahooda. waxay noqotay runtii saadaalin aada u cajiiba. qur-aankuna nubuu'aadkiisa waxaynu maalintii dhaweyd soo tilmaamnay nubuu'addii suuratu tabat yada abilahabin watab aynu nidhi waa nabuu'a sheegaysa qur-aanku uu ku tilmaamayo inaanu abilahab weligii rumaynayni ahlu naarna inuu noqonayo siduu alla u sheegayna way u dhacday iyadoo gaalo kaloo badani joogtay oo iyagu qaar badan oo ka mid ay soo islaameen. tanna waa wadcigii caalamka markaa ka jiray labadii dowladood ugu xooga roonroonaa oo midna ay tahay dowladdii romanska la odhan jiray albizantiyiin, midna ay tahay dowladdii iiraaniyiinta ama bershiyanka la odhan jiray, oo labadii dowladood ee caalamkii markaa la yaqaanay u xoog badnaaya colaad weynina ay ka dhexayn jirtay, oo labadan dowladood aad bay isu hayn jireen, colaad weynina way ka dhexaysay. ayaa waxaa la jebiyey romanskii dhulkaa urdun ay hadda ku taalla agagaarkeeda lagu jebiyey jab aada u xun. waxay dadka wax indhaindheeyaa markaasi u arkayeen inaanu jabkaa dabadeed soo kacaynin romanisku, waxaana aada u xoog bato aada u muuqday dowladdii bershiya ama iiraaniyiintii, waxaana la islahaa dib u soo laabmi mayso taa romanisku. saadaalina aada u fog bay ahayd in la yidhaahdo wadcigay markaa ku jireen iyo noloshay joogeen iyo sidii loo jebiyey iyo dhibtii ku dhacday iyo waxaa in la yidhahdo mar dambe ay soo noqon doontaa ay wax qabsan doontaa. qur-aan baa cirka ka soo degay ilaahay leeya way soo noqonayaan iyagaana wax qabsanaya. qurayshi markaa waa ku istihzaado waa ku qososhay muslimiintan kule romaniskaa laga takhallusay baa mar labaad imanaya, aad bay ugu qosqosleen. dabeetna waxaa la yidhahdaa muranku wuxuu dhex maray abibakar iyo koox mushrikiinta ka mid ah. markii dambe waxay ku heshiiyeen inay rihaan dhigtaan, inay sharatamaan oo ciddii sharadkaa laga helaa xoolaa in laga helo. fi shariica hadda wakhtigeenu joogno sharatankaasi ma bannaana, laakiin intii aanay taxriimku soo degin ayuu ahaa. dabeetana wuu la sharatamay in la jebin doono nimankaasi romanska ah sida qur-aanku sheegaya inay sax tahay iyo inaan waxba ka jirin. rihaankaasi sidii qur-aanku sheegaya ayay u dhacday oo waxaa la jebiyey nimankii romanska ahaa. mar dambe ayay wax jebiyeen. waxaad mooddaa inay kaloo la isku hayay fikrad odhanaysa kristanka oo markaasi uun dee dad lagu tirinaya inay alla rumaysan yihiinah iyo nimankan kale bershiya oo iyagu qolada sanamka caabuda ah oo asnaamta ka tirsan, oo aad mooddo mushrikiintu xagga asnaamta inayana siyaasiyan taageerayeen oo u arkayeen xoog badnida asnaamtu ay xoog badataa inay dani ugu jirto, muslimiintuna inay dhinaca kale taageerayeen. iyo iyadoo jaziira alcarabiya gaar ahaan magaalada maka la yidhaahdo aynu nidhi waxaa ka jiray maka dhul baac mushtar bay ahayd. markaa siyaasadda duwaliga ee dabaddu in badan ayay u fiirfiirsanayeen, waayo maadaama tijaaradoodu nabadgelyada ay ku salaysnayd. waxaa halkana la jebiyey subxaana wa tacaala markaasi nimankii bershiya la odhan jiray, wa yowmaidin yafraxu lmu'miniintii baa dhacday. cadaadiskii muslimiinta lagu hayayna wuu sii tiro batay. waxaa bilaabmay wakhti uu nebigu u ogolaado saxaabadu inay hijrooto maka inay iskaga tagaan. wuxuu u ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inay u hijroodaan dhulkii xabashada
hijrada xabashida loo hijrooday laba goor ayay dhacday, mar hore iyo mar labaad si ay culammadu isku waafaqsan yihiin, ama bukhaariba siduu soo aroorinayaan rajaynaya. labada goor ay dhacday marka hore waxaa la yidhahdaa wakti sii yaro horraysa bay ahayd. kutubi taariikh waxay sheegaan sanadkii shanaad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam soo bixiisa meelahaas buu ahaa. dadka hijroodayna inkastoo aynad sanad saxiixa ku haynin, laakiin sida waaqidi iyo ibnu isxaaq midba laba riwaayadood oo iskhilaafsan ay sheegaan. ibnu isxaaq wuxuu ku sheegaa 10 raga iyo 4 dumara inay ahaayeen. waaqidina sidaa ka yaro gedisan buu ku sheegaa, waa 11 nin iyo 4 dumara inay ahaayeen, yacni hal nin baa difference u dhexeeya. markaynu isku darno waa dhowr iyo 10 qof waxaa la tilmaamaya inay hijrada hore hijroodeen. weliba riwaayadaasi ahlu taariikhu ay wariyaan inaynu nidhi sanad xooggan uma hayno, waxay kusii sheegaan in ay doon ku kiraysteen nisfu diinaar ama diinaar badhkii, inay doon ku kiraysteen. diinaar badhkii waa ilaa 2 garaam oo dahaba meelahaas ay ugu raaceen dhulka xabashida. markaynu eegno riwaayadda saxiixa ee soo aroortay maalan ama isnaad xasana qisada uu ku soo aroorinayo ibnu isxaaq laftiisa iyo ibnu hishaam siiradiisaba ku taalla, isnaadkaasi xasankaa waxa ay tilmaamaysaa ummu salama oo sawiraysa, ummu salama oo ummahaatulmu'miniinka ka mid ah oo sawiraysa hijradaasi siday u dhacday. ummu salama waxay ka mid tahay dadkii koowaad ee hijrada koowaad ka qayb galay. waxay leedahay markii dhulku nagu cidhiidhiyoomay, maki markay nagu cidhiidhiyoontay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii la imtixaamay ee la fidmeeyey, ee uu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa dhib ku dhacaysa saxaabada ee diintooda loogu geysanayo daraaddeed, ee rasuulkuna uu awoodi kari waayey inuu wax ka celiyo, isagoo isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jira bay tidhi fii manacati qawmi, ama tolkii ay wax ka celinayeen, oo isaga abi aalib baa markaa noolay oo aan adugu munaawashaad iyo cadaadisyada qaarkood aynu soo sheegnay mooyaane aan si toosa isaga dhib badan oo caynkanoo toos aanay jirin. ayuu wuxuu necbaystay bay leedahay saxaabadiisii waxa dhib gaadhaysay. wuxuu kaloo jeclaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam meeluu ku badbaado inuu u daydayo. dabeetana maalin ka mida buu intuu la hadlay buu wuxuu yidhi inna biardi alxabasha malikan laa yudlamu axadun cindah. dhulka xabashida waxaa ka mida buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jooga boqor aan agtiisa dadka lagu dulminin, ee falxaquu bibilaadi, dhulkiisa kaa gaadha buu nebigu ku yidhi xataa yajcala allahu lakum farjan wamakhraja mima antum fiih, xataa yajcala allahu lakum farajan wamakhrajan, ilaa iyo alle subxaana wa tacaala idinka yeelayo faraj, ama uu idiin furayo albaab iyo meelaa ka baxdaan, waxaan dhib idin haysa intaa meelaa ka baxdaana laydin yeelayo, sidan yeela. yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waxbaanu rabin in saxaabadiisa la tirtiro ama isti'saal lagu sameeyo. quwada quraysheed ama xoogga quraysheedna wuxuu isku dayayey inay dadkan gaar ahaan dadka ducafaa'ul qowmka qasab in diinta lagaga celiyo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wadcigii dunida ee agagaarkiisa duwalkii ka jiray markuu indhaindheeyey wuxuu tilmaamay boqorkan xabashidu inuu uga cadaalad fiican yahay, oo romaniskan iyo bershiya iyo kuwa kan inuu ka cadaalad fiican yahay boqorkan xabashiyeed, oo markaa iyagu masiixiyad haystay ama nasraano ahaa, diintan nebi ciise uu nisbe sheeganayay. wuxuu yidhi ninkaasi cadaalad baa agtiisa taalla. culammaduna waxay idhaahdaan dawlad islaamah oo dulmi samaysa boqortooyadoodu way zuushaa, laakiin xataa hadday kaafirato cadaaladda leedahay, cadaaladdu waxay ka mid tahay waxyaabaha mulkiga ama boqortooyada ama maamulka dib u dhigay inay suusho, iyagoo aayad qur'aana u daliishanaya. idan alkufr maca alcadaala yaduun bay idhaahdaan. gaalnimo cadaaladi la socoto mulkigeedu wuu waaraa, laakiin islaamnimo dulmi uu la socdaa ma waarto. adoo muslima haddaad xagga dulmiga u xigto cadaaladda laga waayo taadu waari mayse, waxa waarista kaaga xaq leh ta kaafirka ah, laakiin cadaalad ay la socoto. saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii bixi karaya markaa waxay baxeen arsaalan iyagoo ah, koox koox dhuumdhuumanaysa iyagoo ah, oo aan xataa wada soconin. dabeetana halkaa xeebtaa laysugu yimi oo waxoogaaga kane ay iska heleen
meeshaa markay isugu yimaadeenna doontaas bay raaceen iyagoo diintooda la cabsanaya oo xaggaasi qabtay. dhibtu markay sii badatay xataa waxaa la yidhahdaa dadka loo fasaxay inay hijroodaan waxaa ka mid noqday markii dambe xataa abibakar baa isku dayay inuu ka hijroodo meeshan oo iskaga tago. abibakar magaalada makuu iskaga baxaa la yidhi. dabeetana markuu marayay meel la yidhahda barkulkhimaad meel la yidhahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhahdo ibnu dakhina waa nin mushrik ah, laakiin odaybu wuxuu u yahay qabiilka la yidhaha alqaara. qaari waa qabiil xilfi wadaagga laba ahaa bani zahra nimanka la odhan jiray. qabiilkaasuu sayidkiisa yahay. abibakar oo soconayo safara buu arkay. wuxuu ku yidhi ya abibakar ayna turid, xaggaad u socotaa? abibakar wuxuu ku yidhi tolkay baa i soo saaray, markaa waxaan doonaya ilaahay dhulkiisa inaan meelun isaga kocaan alle ku caabudo. hortay bannaan baan u socdaa buu leeya abibakar. faana uriidu an asiixa fi lardi waacbuda rabbi, inaan dhulka iska socdo uno meel aan ilaahay ku caabudon inoo tago ayaan rabaa. ibnu dakhina ayaa markaa la hadlay, waxaanu ku yidhi ina miluk laa yakruj walaa yukhraj, fainaka taksibu almacduum watasilu alrixm wataxmilu alkal wataqri adayf watuciina calaa nawaa'ib alxaq. war adigoo kale buu yidhi abibakar uma baxo lamana saaro. yani abibakar nin isaguna iska baxo oo luma ma aha, nin tolkii saari karaanna ma aha. waayo buu leeyahy adigu wanaag dhammaantii baad ka shaqaysaa. weedhatani waa weedhii khadiijina ay ku lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo soo waxyooday uu baqayay. waxaad mooddaa inay tahay kelmad lagu isticmaalo dadka iska fiican, weedhay carab isaga isticmaali jiroo kale inay tahay. tii oo kaleu isna ku isticmaalo wuxuu leeyahay kaan waxba haysan waad wax siisaa, qaraabada iyo raximka waad xadhiidhisaa, kuwa culus ama dayn ama dhib ama mushkilad ku culus waad ka faydaa ka xambaartaa, martida waad soortaa, balaayinku dadka markay ku dhacaan waad ga gargaartaa. nin waxaasoo wanaaga samaynaya waa fahal jazaau lixsaani ila lixsaani, xaggee lagu saaraa? ma aha buu leeyahy mid baxa. anigaa dimadayda aad ku joogaysa, anaa magangelyo ku siiyey buu yidhi. magangelyo anigoo odaygii reer hebelah ayaa magangelyo ku siiyey. noqo oo dhulkaagii ku noqo oo caabud rabbiga. ninkani waa nin gaaleed caynkan leh. dabeetana abibakar baa soo noqday isagoo ibnu dakhina ay wada socdaan. ibnu dakhina markaa quraysh wuxuu u iclaamiyey ninkaasi waa magantayda. carabtii hore qabaa'ilku waxay isticmaali jireen meesha wada degaa, odayada qabiil ka tirsanay hadday cid magangelyo siiyaan waxay ahayd qolyaha kalena inay magangelo siiyaan, haddii kale labada reer way isdilayaan. waa nin reerka ka mid oo wax la yeelay oo kale. sidaa ogeed wuxuu leeyahay anigaa magangelyo siiyey qurayshay, dee sidaa ogaada. waxaa la yidhi haddii aad magangelyo siisay annana waa ogolaanay magangelyadiisa. ninkaasi gurigiisa haddaba wuxuu ku caabudayaa ku caabudo hana daayo, halkiisa ha joogo. laakiin yuu meelahaa kaga dhawaaqin waxaanu diidannahay. muddo abibakar gurigiisii iskaga tukanayey oo meeshiisii iskaga cibaadaysanayey. dabeetana gurigiisa finaagiisa bannaankiisa yar hore daaraddiisuu meel yar ka samaysto uu ku tukado. halkaas buu abibakar intuu ku tukadaa buu qur-aanka kor u akhriyaa. markuu qur-aanka kor u akhriyana xaafadaha iyo dadka meelaha maraya iyo dumarka iyo carruurta iyo waxaasaa ku soo ururoo la yaaba ninkan oo dhegaysta. abibakar wuxuu kaloo ahaa baa la yidhaha rajulan bakaa, nin oohin badan buu ahaa baa la yidhaha markuu ilaahay is hortaago subxaana wa tacaala. hadduu salaad u kaco nin aad u ooya buu ahaa baa la yidhi oo aan ilintiisa haysan karin. waaba tii caaisha lahayd markuu nebigu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi abibakar far oo waxaad ku tidhahdaa dadka tuki. waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa abibakar da isma xijin karaya ee cid kale u dir bay lahayd. idan abibakar nin aad u oohin badan buu ahaa markuu ilaahay is hortaago. markay go-aan iyo talo tahayna markuu go-aan qaatana nin aad go-aan adag buu ahaa. markay talo tahay waa ninkii keligii lahaa riddadu markay dhacday keligee baan la dagaalamaya, saxaab oo dhan bay haddaa iska hadhaan. xaggana ninka hal adag buu ahaa. laakiin ilaahay agtiisa nin kastoo muslim oo ad adayga hadduu ilaahay is hortaago ilaahay agtiisa waa wax yaroo sagiira. walidaalika abibakar hadduu ilaahay is hortaago ishiisa ilinta kamuu xejin kari jirin. abibakar marka halkaasuu iskaga tukadaa ooyaa qur-aankiisa akhriyaa. qurayshi waxay ka cabsatay ninkan inuu raadeeyo dadkan dhegaysanaya iyo dadkan kusoo ururaya inuu raadeeyo. waxaa lagu noqday ibnu dakhino waxaa la yidhi dhegayso ibnu dakhinow lama kala dooro.
ninkan inaad magangelyadiisa ka baxaysid oo isu kaayadaynaysid iyo dumarka iyo carruurta inaanu naga waalinay inuu gurigiisa ku noqdo oo hadduu doonayo gurigiisa wuxuu doonaya haka sameeye inaanu dabad ula soo bixin qur-aan la akrinayo ibnu daqina ku noqday oo wuxuu yidhi abibakarow dee labadaa midun baan kaa doonaya waa magangelyo waan ku siiyey laakiin dee ilaahaaga hoostaada isaga caabudo gurigaaga joog haddii kale magangelyadaydii soo celi oo carab de waxaa qoraysh kale helaysaan yeela markaas abibakar wuxuu yidhi jawaarkaaga heshiiskaagiina waa kuu celiyey ilaahay baan jaar la ahaanaya magangelyada allaan ku joogayana kala kaxe adna sidii buu joogay abibakarna wuxuu iska aqbalay inuu xamilo wixii dhib gaadhayey nebiguna calayhi salaatu wasalaam inuu joogaabuu u tilmaamay hijradii hore saxaabadaa hore hijrootay ee dhowr iyo tobanka ahayd dhowr iyo tobankaasi intay sii maqnaayeen ayaa maalin maalmaha ka mida buu nebigu calayhi salaatu wasalaam masjid xaraamka gudihiisa ayuu suuratu najmi akhriyey wannajmi idaa hawa maa dalla saaxibukum wamaa gawa wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa callamahu shadiidu lquwa aayaadkaasuu akhriyey muslimiintii meesha joogtay oo dhammi way sujuuday mushrikiintii meesha dhegaysanayeyna way isxejin kari waayeenoo way sujuudeen laba ninoo ragga kibirka badan ka mida mooyaane baa la yidhi dabeetana war baa faafay odhanaya qurayshiba way islaamtay maalintaasi markay ishayn kari waayeenee qur-aanka loo wada sujuuday markuu nebigu akhriyey ayaa war faafay odhanaya qurayshba odayadeedi iyo dadkeedii waaweynaa maanta masaajidkii jooga o dham inta maxamed qur-aan akhriyey ayay dhammaantood wada sujuudeenoo dadba wada islaameen waxaa jira riwaayaad mursala xadiidka mursalkii waa xadiid uu taabici warinayo oo aan gaadhsiisnayn saxaabi mursal saciid ibnu jubayr iyo abubakar ibnu cabdiraxmaan iyo abulcaaliya saddex mursal oo saddexdaa nin gaadhaya baa jira oo isagu sheegaya in shaydaan nebiga calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu ku soo tuuray wax oo qiradii ay ka mid ahayd iyagusay sheegaya nebigu akhriyey in uu ammaan yari ku jirtay oo sanamada la ammaanayo oo tilka alqaraaniiqi alculaa wa ina shafaacatuhunna la turja weedho sheegaya inay ammaan u tahay asnaamta shafaacadoodana in la rajaynayo inay carab ku soo dhacday riwaayado mursalaa jiro iyagu daciifu sanadah oo sheegaya cibaaradatan in shaydaan yidhi oo ay mushrikiintuna maqleen muslimiintuna aanay maqal oo mushrikiintuna sanamadoodaa la ammaanay bay la sujuudayeen muslimiintuna yacnii suuratu najmi qiradeeday la sujuudayeen laakiin qisadaasi culamo badan baa radiya inkastoo mursalkaasi ilaa xadkiisaasi uu sanadkiisaasi saxiixiyey laakiin culamo badan baa radiya oo waxaa la leeyahay aslulcaqiida bay ka soo hor jeedaa walidalik baa maalan sheekh ilalbani waa kan qoray risaalada dhana la ydhahaa nasbi almajaaniiq linasbi qisati algharaaniiq waa warafyadu aan u xidhanayaa buu leeyahay qisadaasi sidii loo tuurtuuri lahaan wax ka jira aanay jirin waa qiso runtii aan sal caqiidada ku lahayn sida saxiihina waxay tahay uun suuradda tan inay isxejin kari waayeen niman carbeed oo luqada carbeed garanaya bay ahaayeen inay isxejin kari waayeen dhegaysigii suuradda tan sidaasi daraaddeed inay la sujuudeen calaa kulli xaal waxaa faafay war odhanaya quraysh baa islaamtay muslimiintii joogtay markaasi ardi alxabasha qayb ka mid a ama muslimiintii halkaa joogay war baa soo gaadhay odhanaya qurayshiba way islaamtay dabeetana waxay is idhahdeen dee dhulkiinni iskaga noqdo mar hadday qurayshi islaamtay dhibtii way dhammaatay qoladii hore hijrootay dhowr iyo toban ka ahayd warkaas baa soo gaadhay dadkaasi markaa qayb ka mid ah ayaa ahlu taariikhu waxay yidhaahdaan ama ahlu siyarkubaa soo noqday oo uu ka mid yahay cuhmaan ibnu madcuun ninkii la odhan jiray waxay soo socdaanba markay maka yimaadeen ama duleedadeeda markay yimaadeen ayay ogaadeen warkaasi inaanu sax ahayn quraysh odayadeedii iyo nimankii habaarka qabayna inaanay islaamin waxay noqotay markaasi inay dib u xidhxidhaan haddana halkiibay dib uga xidhxidheen laakiin marka kan waxa ku darsamay baa la yidhahdaa raacay dad kale oo iyana rabay meeshan dhibtii ku tiro badatay inay iska hijroodaan ayaa helay dad dee wadamareenoo meeshii soo maroo kala yaro garanaya wax dabeetana dad kaloo badan ayaa soo raacay ibnu isxaaq isagu wuxuu odhanayaa markan dambe dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen ibnu jariirna wuxuu leeyahy 280 nin iyo dhowr iyo 10 dumar ah ama 280 nin bay ahaayeen marka laga reebo buu leeyahy dumarka iyo carruurta
dumarka oo qurana waxay ku sheegaan mar labaadkan dhowr iyo 10 inay haayeen ala kulli xaal ahlu siyar dad badan bay sheegayaan markan dambe inay haayeen oo 80 ka kor u dhaafay dadkan dambe dib bay u hurjiroodeen waxaanay qabteen iyaguna ard al-habasha culimada taariikh siday warinayaan waxa la yiraahdaa waxay quraysh markaa tidhi waa dhib badan tahay in meesha inta isugu tagaan ay ciidan kale iyo wax ka soo heli karaan nimankan warkoodu intaanu inagu faafin aan soo qabqabanno marka laba nin oo quraysh waayeelkeeda iyo ragooda cajabta badan la kamid ah la diro boqorka xabashidana waa nagaashi boqorka xabashidana ha loo diro iyo bataariqadiisa yani wadaadadiisa kalarjiskiisa ha loo diro hadiyado tiro badan leh haynugu soo dirana ha la soo qabqabto nimankaas iyagoo maxaabiista hala keena baa la yidhi waxaa la diray laba nin oo mid yahay camar ibn al-caas saxaabiga ahaa marka kan gaal weeyaan intaanu islaamin weeyaan camar ibn caas waa ninkay ku tilmaamaan daahiyat alcarab baa la odhan jiray nin aad u caqli badan oo maskax badan buu ahaa iyo cabdillaahi ibnu abi rabiica labadaasaa la isku daray waxaa la yidhi camarow nimankaa maanta meel kaga soo hoyo keen adigoo wada iyagoo maxaabiis camar baa yimi iyo ninkan kale la socda oo hadiyada wada oo boqortooyada loo sido boqortooyada tan hadiyada loo siday markaa waxay damceen inay la kulmaan boqorka waxaanay weydiisteen inuu soo celiyo nimanka kan najaashi wuxuu yidhi muslimiintiina bal halaygu yeedho muslimiintii oo uu ka mid yahay jacfar ibn abi aalib baa loo yeedhay wuxuu yidhi bal hadla ka warrama ninkani waxaan buu sheegaya idinku diintiina yacni cadaaladdu way ka muuqataa durbaba waayo cadaalad darro waxa ah in cid qudhi intay cid wax ka sheegto lagu akriyo dabeetana xukunka lagu qaado cadaaladda waxay halkanba ka muuqataa ninkani inuu nin suu nebigu u sheegay cadaalad garanaya yahay quraysh iyo odayadeedii iyo hadiyadaheedii iyo waxeedii intuu qaato oo warkii dhagaysto muu odhan inuun waa kuwa nimanka tolkooda iyagaa war badane kooxdan yaryari waa irhaabiyina hala celiyuuna muu odhan ee wuxuu damcay in bal iyana waxay hayaan la weydiiyo oo la waraysto labada dhanba inuu afti ka qaado markaas buu ku yidhi muslimiintii bal warrama idinkuna jacfar ibn abi aalib baa markaasi hadlay wuxuu yidhi boqorow waxaanu ahaan jirnay niman shirki iyo gaalnimo ku sugan sanamka caabuda baktiga cuna jaarka u daran wax kasta xalaashada badhba badhka iyaga uu dilo dhiigga iyaga aanu isbanaysanno wax naga xaaraanayna ma jirin wax noo xalaalina ma jirinee hor baanu isaga soconnay annagoo nooca u nool ayaa ilaahay noo soo diray nebi annaga naga tirsan oo aanu garanayno ballankiisa iyo runsheegiisa iyo ammaanadiisa yacni nimaanu naqaano aan ahayn nimaanu khiyaamo iyo been iyo cahdi xumo iyo waxaanu ku naqaanay aan ahayn baa naloo soo diray ninkaas wuxuu noogu yeedhay buu leeyahay ilaahay noo soo diray nebiga ahi inaanu ilaahay keligii caabudno oo aanaan cidna ku lamaanaynin inaanu qaraabada iyo raximka iyo tolka xidhiidhinno inaanu jaarka u fiicnaanno inaanu ilaahay u soonno oo tukanno inaanu cibaado yacni wanaag oo dhan buuna faray wuxuu ku yidhi baa la yidhi markaasi hiraqal hal macaka shay-un mima jaa bih wixii uu idinla yimi wax ma ka haysaan yani waxyigan uu idin keenay qur-aankan aad sheegayso bal haddaa wax ka haysaan sheega wuxuu kaloo u yeedhay la yidhi wadaadadoodii kristanka ayaa saaqifadoodii iyo wixii o dhan buu yidhi soo fadhiista jacfar wuxuu yidhi haa waan hayaa haluma fatlu calaya maa jaa bihi buu yidhi bal igu akri buu yidhi haddaba waxaanuu la yimi jacfar ibn abi aalib saxaabi runtii caqli badan buu ahaa wuxuu ku akriyey suurad ka warramaysa muctaqadka iyagu rumaysnaayeen suuratu kahf ama maryama suuratu maryam ayuu markaasi ku akriyay kaafha ya cayn saad suuraddaasuu ku akriyay najaashi markuu suuraddii dhegaystay ee uu fahmay ayuu ooyey ilaa iyabaa la yidhahdaa gadhkiisi uu qoyey sidii u ooyayey wadaadadii kristankaee meesha fadhiyeyna waa ooyeen wuxuu najaashi markaa yidhi warkan aad sheegayso iyo warkii muuse la yimi meel quray ka soo wada baxeen
maya warkii muuse la yimi buu yidhi meel quray ka soo wada baxeen say riwaayaddaasi sheegayso markaasay quraysh nimankii quraysheedaa waxay arkeen inay jabeen markii la yidhi warkan uu maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanka ah iyo warkii nebi muuse sheegayay oo kale waa waxyi un meel ka wada yimi ayay waxay damceen inay ninkan camar ibnu alcaas la yidhaha waa daahiyat alcarab waa nin caqli badan sidaa inu ku tago muu dooranin wuxuu isku dayay bal inuu dhan kale ka soo wareego oo bal jalse kale la sameeyo wuxuu yidhi nimanka kani ciise waxa ugu xun bay ka sheegaan wuxuu ogyahay in kiristanku ciise ay u haystaan inuu yahay ina ilaah ama ilaah uu yahay dabeetana wuxuu damcay inuu baabkaa ka soo galo oo baabkii ahaa nimankani waa niman xunxun oo tolkooda bay ka baxeenoo waa kaasoo socon waa idan waa inuu iminkana galaa inay kiristanka wax ka sheegaan oo idinkaba qaar wax idinka sheegaya inay yihiin wuxuu yidhi nimanka kani war xun bay ka sheegaan ayuha almelik buu yidhi innahum yaquuluuna fii ciisa qawlan cadiima ciise waraad xun bay ka sheegaan najaasha haddana u yeedhay wuxuu ku yidhi maxaa jacfar buu yidhi maxaa ka tidhaahdaan ciise jacfar wuxuu yidhi waxaanu leenahay huwa cabdullaahi warasuuluh وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول waxaan leenahay buu yidhi waa ilaahay addoonkiisii ciise waana ilaahay rasuulkiisii waa kelmaddii iyo ruuxdii ilaahay uu maryamo ku beeray saasaanu leenahay buu yidhi najaashi baa wuxuu yidhi maa cadaa ciisa bnu maryam mima qulta hada alcuud qori yar intuu qaaday buu yidhi qorigaa wax uu dheer yahay intaa adigu aad sheegtay ciise ma jiro dabeetana wuxuu amray boqorkii ammaan nabadgelye in la siiyo muslimiinta tan umu salama markaasa waxay leedahay faaqaamuu maca khayri jaarin fii khayri daarin ayay umu salama ku tilmaamaysaa xadiidkaas iyo sanadkiisu xasan yahay waxaanu degnay bay leedahay jaar kii u khayr badnaa kulla la darso dariskii u fiicnaa iyo gurigii wanaagsanaa baanu saa ku degnay riwaayaat saxiixihii waxay sheegaysaa wadaadada tan marka laga warramayo ay la fadhiyee ooyey majlisa najaashi inuu qur-aanba soo degay adkaynayo mas'aladan qisadani siday u dhacdo ilaahay leeyihi walatajidanna aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu aladiina qaluu ina nasaara dalika biana minhum qisiisiina waruhbaana waanahum laa yastakbiruun waida samicuu ma unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamc mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbana aamanaa faktubna maca ashaahidiin aayaddan qur-aan oo ilaahay leeyay dadka ugu dhow muslimiinta kalgacal waxa ay yihiin kuwii yidhi nasaaraanu nahay waayo waxaa ka mida qisiisiin wadaado iyo ruhbaan kuwa cibaado u go'ay waxaana yihiin baa ilahay yidhi kuwa aan iswaaweynaynin waxaad arkaysaa marka yacni ay maqlaan wixii rasuulka lagu soo dejiyey iyagoo ishooda ilini ay ka dareerayso waxaad moodaa mubaadaradii ama isku dayii quraysheed ee ahaa inay muhaajiriinta soo celiyaan inay ku khasaareen oo marka kan ay socon weyday muslimiintiina inay heleen meel ay degaan waxyaabaha runtii u fiirsiga lena waxaa ka mid ah mowqifkay muhaajiriintu caqiidadooda iska taageen may qarinin ciise manay ka warwareegin ee wixii ay ka rumaysnaayeen xaqiiqada ahaabay ka sheegeen iyagoo khilaafsan kiristanka agtooda wixii saa'idka ahaa warwareegin ee wixii ilaahay uu ku ogaayay diintooda ku yaallay bay sidooda u sheegeen mowqifkooda xaqiiqada ee inay caqiidadooda ka run sheegaanna ahna ilaahay subxaana wa tacaala waa ku nabadgeliyey oo hijradoodaasi meel fiican ayay ugu dhacday oo waa degeen waxaase iska dhib badan kollayba dhul qurba'a ku noolaantii iyagoo nimankani dhul carbeed niman ku noola ay ahaayeen oo yimid dhul aan af carabi lagaga hadal ama aanay tol iyo qaraabo toona la wadaagin midab iyo diintoona aanay la wadaagin waayo waxay u yimaadeen najaashi ama dawladdii waa qolada tan xabashida iminka kuwan hadda haysta iyo haadhigu meesha ka yimaadeen weeyaan iyo kooxda tani waayo xabashidan cusub waa mililik iyo xayla salaasiya kuwan baa samaystay laakiin xabashidii hore waa qoladan iminka iyo haadhiga loo yaqaano ayay boqortooyadan lahaan jiray boqorkoodan horena wuu islaamay
dadka laakiin in badan waxa kaga qaldanta haddana boqorradii dambe ee uu nebigu waraaqa u dirdirayey mid dambe oo gaalabu kaasi ahaa laakiin kan hore islaamay waa asxama isagoo asxama waanu islaamay islaamnimaanu ku dhintay nebigaana ku tukaday calayhi salaatu wasalaam nacyigiisii markii lasoo sheegay isagoo madiine jooga saxaabadii waxay dareemeen un dhib aada u tiro badan leh dhibtaasi suuradeeda sawirkeeda waxayna kaga filan markii muslimiinta kale ay hijroodeen ee madiine ay tageen ayaa qoladanina mar dambay ka yimaadeen xabashida dabeetana waa la dooday cumar iyo gabadh la odhan jiray asmaa bintu cumays ayaa murmay oo ka mid ah dumarkii u hijrooday maka kasoo u hijrooday xabashida ka soo noqday markaasay cumar iyo baa waxay ku yidhahdeen annagaa dee hijradii nebiga idinkaga soo horreyno idinka xaq leh yacni nebiga annagaa hortiin u nimi oo dee muddo la joognay oo u gargaarayno la soconnay gabadhaasoo gabadh caqli badnoodna ahayd ayaa waxay ku tidhi markaasi kallaa wallaahi kuntum maca rasuuli ma jirta bay tihi cumar waxaad sheegaysaane idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo yuطcim jaa'icakum wayacdi jaahilakum idinku waxaad la socoteen ilaahay rasuulkiisii oo kiina gaajaysanna quudinayey kiina aan wax garanayna waxu sheegaya o wacdinayey annagu see dhul fog oo qurba a baanu joognay oo aan rasuulna nala joogin cidinana wacdida iyo cid wax noo sheegtoo kalena aanay nala soconin bay tilmaamaysaa yacni qurbaday ka warramaysaa markaas ilaahay dartii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam diintii uu la yimi inaanu qaadano daraaddeed baananu xaggaa u joognay waxaananu ahayn bay leedahay kuwo kunnaa nu'daa wa nukhaaf kuwo la dhibo oo cabsanaya baanu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam warkoodii markuu dhegaystayna wuu u kala gar noqo wuxuu ku yidhi laysa biaxaqa bi minkum walahu waliasxaabihi hijratun waaxida walakum antum ahlu safiina hijrataan facaduma alfarxu bayna muhaajirati alxabasha xadiidku bukhaari ku yaalla waxa uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam igama kiin awlaysana qolada tani cumar iyo kooxdiisoo hal hijro bay leeyihin idinku laakiinse laba hijraa leedin buu leeyahy tii hore xagga u hijrooteen iyo tan dambe a madiine usoo hijrooteen ilaa ay aada ugu farxeen muslimiintii meeshaasi u hijrooday oo dhami calaa kulli xaal culamaai taariikh waxay wariyaan war aan min xayu sanad xoog u asaxin ama sanadkiisu aanu fiicnayn ahlilmakaaziguna ay sheegaan oo ah nin cubaydullaahi ibnu jaxash la odhan jiray oo ahaa ninkii qabay ummu xabiiba bintu abi sufyaan ee uu nebigu markii dambe guursaday calayhi salaatu wasalaam ee ummahaatulmu'miniin ka mid aha ninkaasi bay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay ciddii kiristaanowday intii uu joogay xabashida kadibna isagu xabashidu ku dhintay hadday qisadaasi saa u tahay qiso kalea jirta oo nin cabdiraxmaan ibnu khaalid la yidhahda uu ku jiro saduuq lagu tilmaamayo sanadkeedu uu xasan yahay laakiin adigu marka laisku wada daro waa la daciifiya oo xadiitaan uma sugna bay leeyihin kaasina wuxuu sheegayaa inuu nebigaba wuxu sii dardaarmay laakiin calaa kulli xaal qisada hore haddaynu qaadanno hadday sidaasi u jirto inuu ninkaasi ku kiristaamay waxaad arkaysaa ummad kasta oo dhulkii diinteeda iyo dadkeedu joogay ka tagta inay u bantaallo in la ugaadhsado oo ay fududday markaasi in cidi ka daadato hadday dhacdayba in saxaaba badh laga ugaadhsan karay waxaad garan kartaa un cid kasta oo dhul gaalee tagtay oo wasat ama biya ama environment ama deegaan tagtay gaalnimo unay joogto ama kristan lagu haya ama waxaan lagu haya inay fududdahay in cid badani ka daadato waana cabsida runtii maanta u taalla dadka soomaaliyeed ee in badan u kala qaxay caalamka gaaladu ay ka buuxdo oo weliba dhibta ugu badani ay tahay iyadoo dadka ugu badan ee joogaan ay dumar iyo carruur yihiin iyo dhalinyaro yacni dadka ugu badanay jooga ay yihiin dad jilicsan ama dhibta labaadee jirta ay tahay dad aan diinta wax badan ka aqoonin ama mar labaad ay jirto dhul badan oo aan xataa dad diin u sheegiyo waxba toona aanay la soconin ee gaalown intay afka uga galeen ay iskala degeen in carruurta iyo dadka meesha ku kobca iyo aragtida iyo waxa ka soo baxa hadhow kristan wada noqdaan ama diin laawayaal ay soo baxaan wax badan maaha inkastoo soomaalidu uu ka fakeraanu qofku wuxuu cuno ma helaya kuwii xagga joogayse biil ma u soo diraya beledu doono isagu ha qaato markaasi ummu xabiiba uu ninkaasi ka dhintayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u khidbadeeyey yani ayaa guursaday oo najaashi u soo diray war in gabadha isaga loo guuriyo loo meheriyo nebigana loo meheriyo calayhi salaatu wasalaam
najaashi baana meherka ka bixiyey baa la yidhaahdaa sida musnadu imaamu axmed ku sugan isnaad saxiixa weliba iyo sunan abi daawuud ba yani xadiis saxay sida uu tilmaamayo 4,000 ayaanu meher ugu bixiyey isagu najaasha meherkana ka bixiyey oo 400 oo mehera bixiyey 4,000 oo mehera ka bixiyey waxaanu ku soo daray markaasi iyadii iyo ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dib ugu soo daray saxaabiga la odhan jiray shuraxbiil ibnu xasna ayaa la soo raaciyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxba muu dirin hantidan tirada badan lana najaashi ayaa ka bixiyey waxaanu ahaan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam meherka uu dumarkiisa meheriyo haweenka meherku ka bixiyey dhammaantood waxay wada ahaayeen 400 oo dirham ayuu haweenkiisa kale oo dhan nabigu uu ku mehersaday laakiin haweenayda tan 4,000 oo dirham ayaa laga bixiyey saxaabadii xaggan iyo nabiga u hijrootay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii u hijrootay baan ujeedaa dhulka xabashida ee muddada deganayd kadib waxay mar labaad u soo hijroodeen madiina markii muslimiintu ay madiina degtay intoodii badnayd waliba kooxahoodii ugu dambeeyey oo jacfar ibnu abi aalib uu wadaana waxaaba yimaadeen khaybar markii la furtay ayay soo gaadheen laakiin intii ay meesha joogeen waxa kaloo ugu yimi koox kale oo saxaabo ah oo iyana soo hijrootay oo gaadhayabaa lagu tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo 53 nin ka kooban oo wato saxaabigii la odhan jiray abu muusa alashcari oo yamana ashcariyiina kooxda tan waxaa la yidhaahdaa yaman bay ka yimaadeen dabeetana doontaasay soo raaceen waxay rabeen inay qabtaan nebiga calayhi salaatu wasalaam dee doonyihii shiraaca lahaabay ahayde baddaa ku kacday dabeetana xeebtan un xabashida ayay kusoo duldhaceen markaas bay iska ugu yimaadeen saxaabadii kale halkan joogtay kadib baa laysa soo wada raacay hadhow ayay iyaguna yimaadeen madiine markii dambe iyana 2 goor bay markaa hijradoodii noqotay iyagoo markii hore u qastiyey inay madiine qabtaan laakiin doonta aanbatay ay geysay xabashida kadib bay xaggaas ka soo hijroodeen taasi waa qisada ku saabsiisan xabashida iyo u hijroodkoodii haddaynu dib ugu noqonno markaasi maka muddadan ay saxaabadani xaggan ku soo maqnaayeen iyo wixii dhacay waxaynu nidhi saxaabadii 80 dadkaa ka badani waa ka hijroodeen oo xaggan bay soo qabteen dadka intii ku hadhay hijroon kari weyday ama bixi kari weydayna sidii baa loo dhibay nabiguna calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa wixii meesha joogay sidii bay diinta u faafinayeen ay diintu u socotay dadyawga soo islaamay markaa waktigaasi waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray cumar bn alkhaaab radia allahu canhu cumar bn alkhaaab iyo qaabku u islaamay waxa xadiid oo saxiixa oo ku soo arooray ma jiro laakiin ibnu isxaaq ayaa wuxuu tilmaamayaa islaamnimada cumar inay dhacday intii xabashada loo hijrooday kadib yacni weliba hijradii koowaad dabadeed inay dhacday waaqidi oo ninkaynu dhowrka goor soo tilmaamnayna isna wuxuu leeyahay waxay dhacday sanadkii 6aad dilxija sanadkii 6aad ee bicada weliba wuxuu leeyahay isagoo cumarna markaa nin 26 jir ah riwaayada waaqidi aynu nidhi axaadiistiisa lama qaato waxa uu odhanayaa muslimiintu 40 ama 50 ama 56 meelahaas bay ahaayeen buu leeyahay duuduuba waxa ay arrinku ku kooban yahay uun cumar wuxuu ahaa nin xoog badan oo ragga wasniga ku leh magaca ku leh carab dhexdeeda ka mid ah waxaanu soo islaamay in wakti muslimiinta aad loo dhibayey oo adaagu uu ku dhib badnaa cumarna markii hore islaamnimada halka uu ka joogay waxaad ka garan kartaa xadiidka saxiixa maalan bukhaari ku yaala ee uu ka warramayo ninka la yidhahdo saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nafiil oo ah nimay ilmaadeeriyeen cumarna walaashii qabay faatima gabadhii la odhan jiray qabay faatima bint alkhitaab gabadha la yidhahdo qabay ayaa wuxuu leeyahay wallaahi laqad ra'aytunii wa ina cumar waxaa ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi waxaan soo maro oo ay joogtay buu leeyahy oo la arkay
iyadoo cumar uu islaamnimo daraaddeed ugu xidho intii aanu islaamin yani intuu xidhay inuu ciqaabi jiray ninkana ilmaadeerkayina inaadeertiina qaba idan cumar wuxuu ka mid ahaa un dadka dhiba maxay muslimiinta ayuu ka mid ahaa dadka badhna qisaska badh waxay isku xidhiidhiyaan markaa ninkaasi la yidhaahdo saciid ibnu zayd iyo islaamnimada cumar oo qiso ayaa jirta iyana aan asaxin oo sheegaysa inuu ku talagalay inuu nin dilo dabeetana isagoo maagmaagaya uu nin kaloo saxaabi yidhi waar aan cumar iska celina maanta oo yidhi maad gurigiina islaamnimada ka celisid intaad annaga nagu soo socoto oo uu maqlay markaasi ugu horraysay in walaashii islaamtay iyo ninka kani dabeetana gurigoodii uu yimi nabar uu ku dhuftay kadib waraaq qur'aan oo ay akhrinayeen uu ka qaaday taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa suuraddaasi ay ahayd laakiin ma asixin iyaduna qisada cumar laakiin waxaa kaaga filanaya siduu u adadkaayo islaamnimada uga fogaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa maalan waxaa umu cabdillaahi gabadha la yidhaahdo iyo ninkeeda oo ka mida dadkii xabashida u hijroonayay cumar nin adadagna wuu ahaa mararka qaarkood nin naxariis badanna wuu ahaa ayaa waxay leedahay annagoo guurayna oo xidhxidhanayno oo rabno inaanu baxno oo ninkaygiina uu ku maqan yahay bay leedahay iga tegay oo uu ku maqan yahay yacni qalab urursigii uu ku maqan yahay anna aan xidhxidhayo sii baxaya cumar igu soo baxay bay tiri markaasuu iskay dul taagay isagoo gaalkiisii wuxuu igu yidhi bay tidhi waana nimankii aanu dhibta kala kulmi jirnay bay leedahay cumarku wuxuu igu yidhi bay tidhi xaggaad qabanaysaa miyaad tegaysaa bay tidhi innahu lilinطilaaqi ya umu cabdallah waxaan u malaynaya inaad safraysaan waa tegistiinii miya markaasaa waxaan ku idhi bay tidhi nacam wallahi lanukhrijanna fii ardi illah aadaytumuuna waqahartumuuna xataa yajcala allahu makhraja haa wallaahi baan ku dhaartee waa ka tegaynaa meeshan aad degantihin ilaahay dhulkiisaasaan u baxayna na dhibtoo nafta isugu kaaya keentaan ku idhi bay tidhi cumar calaacalkii ay gabadhani calaacashay ayuu ka naxay dabeetana wuxuu ku yidhi saxibakum allah allah idin dhowro ayuu yidhi o iskaga kay tegay bay tiri gabadhii waxay ka yaro dareentay cumar inuu u naxariistay oo kale siibuu kaga tegey caamir baa yimi ninkeedii markuu yimi baan u sheegay bay tiro waxaan idhi bay tihi abaa cabdallaahiyow haddaad arki lahayd cumar maanta siduu u murugooday markuu arkay inagoo safraynoo baxayna wuxuu ku yidhi atamicti fii islaami mayaahe buu ku yidhi ma islaamnimada cumar baa ayaa hunguri kaa haya yani siduu u fogaa ninkan ma ka rajaynayo ma islaamnimada cumar ayaa hunguri kaa hayaa buu ku yidhi markaasay ku tidhi haa cumar islaami maayo buu yidhi falaa yuslim aladii ra'ayta xataa yuslima ximaaru lkhitaab kaad sheegaysaa islaami maayabay ayuu ku yidhi ilaa iyo dameerka khitaab oo islaamo mooyaane yani dameerkaasaa ka hor islaamaya cumar siduu u fog yahay waxaanu rabay inuu ka quusiyo arrintani waa qisaskaa waxaa iyagana soo wariya ahlu siyarku laakiin waxaa meesha muuqata gabadhu inay ka ra'yi toosnayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka sunani termedi ku sugan ee sanadkiisu yani uu termedi ku tilmaamay xasanun saxiixa inuu yahay waxa uu sheegayaa xadiidku waa saxiix ligayri calaa kulli xaal culamadu markay isu geegeeyaan waxa uu sheegayaa xadiidkaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryi jiray inuu ilaahay diinta tan ugu gargaaro cumar ilaahayna ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa aqbalay dabeetana cumar wuu soo islaamay markuu soo islaamayna runtii wuxuu ka mid noqday arkaantii ugu waaweyneyd ee dadka muslimiinta ay ku tiirsadaan bale waxay gaadhay markuu soo islaamay in dadku masaajidka ay ku tukadaan iyadoon cidna dhiman ibnu mascuud ayaa xadiidka bukhaari ku yaalla waa kii lahaa maa zilnaa acizatan munda aslama cumaru buu yidhi maanan ka suulin buu yidhi inaanu dad sharaf le oo cize le noqonno sidii cumar uu u islaamay mar kale waa ka tilmaamaya xadiid طabaqaat ibnu sacad ku yaalla sanad saxiixa ku soo arooray laqad ra'aytunaa wamaa nastaiicu an nusaliya bilbeyti xataa aslama cumar falamaa aslama cumar qaatalahum xataa tarakuuna nusalli waxaa la arki jiray buu leeyahy waxaan soo joogay
iyadoo aanan awoodin inaanu masaajidka ku tukan karno ilaa iyo uu cumar islaamay buu leeyahay. markuu islaamay buu dagaalamay ilaa iyo ay naga tageen oo noo ogolaadeen inaanu ku tukan karno masaajidka. mar kale xadiiثu mucjam اkabiirka ku yaala طabrani oo isna isnaadkiisu xasan yahay waa kale ibnu mascuud laftiisii ina islaamuhu kaana nasra buu yidhi diinta soo gelistuu soo galay cumar waxay ahayd nasri guul alle uu islaamka siiyey. islaam mucjamkaasi cabdillaahi ibnu cabaas waa ka isaguna sheegaya cumar isagoo ka warramaya xadiidkiisna waa xasan sanadkiisu cumar maalintii midida la geliyey uu dhiman doono ee dambe khilaafadiisii markii midida la geliyo ibnu cabaas isi soo dul taagay isagoo leh cumar buu la hadlayo wuxuu ku lahaa falamaa aslamta kaana islaamuka cizan waadhara allahu bika alislaam warasuulu llahi waasxaabah markii aada islaamtay buu leeyahay cumarow wuxuu islaamnimadaadii horena ahayd casiiznimo iyo sharafti oo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamnimada iyo rasuulkiisii iyo saxaabadiisiiba uu kugu kor yeelo kugu muujiyey. cumar iyo siduu u islaamay haddaynu soo qaadano qiso shaahido cayaanu soo aroorinayo oo siirada ibnu hishaam iyo ibnu isxaaq ba ay sanad xasana ku soo saaraan ibnu kaiirna uu leeyahay waaba sanadku jayid. cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhaaab weeyaan inankiisii oo ka warramaya wixii dhacay markaasi uu cumar islaamay oo le waktigaa inan yaroo caqlilo wax kala garanayaan ahaa buu leeyahay. waliba waa meelahay ka soo qaataan yacni islaamnimada cumar inay waktiyadan ku beegnayd waxay ka soo qaadaan maadaama cabdillaahi ibnu cumar da wax kala garanaysa uu ahaa ghaswatu bederna raggii loo diiday oo hayo 14 jir ahaa yacni inay waktiyadaa ku beegnayd beder horteed inay ku dhacayso muddo aan 10 sano ka yar oo waktiyadaa ku beegana waa meelahay isaga geeyaan yacni qisada tani waktigii ay dhacday markay xisaabinayaan culamaai taariikh qisadan xadadkeeda da'daa cabdillaahi yaray ku xisaabtamaan waayo cabdillaahi qisadan wuxuu inoo sheegi doonaa isagoo inan yara oo aabihii daba socday inay waxaan oo dhami dhaceen oo sheekada tan caqliyeynayay waktigii badarna inuu nin loo diidayba inuu uxud in dagaalka galo labada dagaal midna loo diiday midna loo ogolaado dhalinyara inuu ahaa. calaa kulli xaal wuxuu leeyahay aabbahay markuu islaamay ayuu wuxuu yidhi ayu qurayshin anqalu lilxadiid quraysh nin maa warkiisu dadka gaadhsiin og ii sheega ninka dadka ugu warkiisu yacni wuxuu rabaa islaamnimadiisa inuu ka sheego iclaamka ugu weyne markaa quraysh dhexdeeda ka jira si dadoo dhamiba uu ogaado warka cumar aanu marnaba u qarsoomin. markaasu wuxuu leeyahay quraysh warka yaa u qaadi og waxa la yidhi buu yidhi nin la ydhaha jamiil ibnu macmar aljumaxi ninkaas buu ku kallahay baa la yidhi gurigiisii iyo xaggiisii. cabdillaahi ibnu cumar wuxuu leeyahay faqadawtu attabic ahara waandur maa yafcal waan soo dabagalay buu leeyahay aabbahay anigoo bal eegaya waxa uu sameeya buu yidhi anoo inana buu cabdillahi wuxuu leeyahay waana ghulaamun acqil kula maa ra'ayt wiil yaroo wuxuu arkaba garan karoo fahmi kara baan ahaa buu leeyahay. markii uu ninkii u yimi ayuu wuxuu ku yidhi buu yidhi aclimta ya jamail annii qad aslamtu wadakhaltu fii diini muxamed waryaahe buu ku yidhi ninkii war ma og tahay buu yidhi horta inaan islaamay oo diintii nebi maxamed galay. ninkii lagu yidhi quraysh oo dhan isagaa warka uu qaadi og ayuu warkiisii u sheegaya cumaroo caynkaasu ku yidhi. ibnu cumar wuxuu leeyahay wiilkii isagoo hadlaya fawallaahi maa raajacahu xataa qaama yajuru ridaa'ah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi hadalka kumuu celinin buu yidhi ee ninkii wuu istaagay isagoo maradiisii jiidaya buu yidhi xataa maradii aansaani u qaadan isagoo marada jiidaya ayuu dhaqaaqay buu yidhi cumarna wuu dabagalay buu yidhi anna waan sii dabagalay buu leeyay yarkii xadiidka warinaya markaa. saddexdoodii oo isdaba socda ayaa qabtay xaggii masjidka wuxuu istaagay buu yidhi ninkii baabilmasjid markuu marayey ayuu qaylo labada dhagood isqabtay buu yidhi isagoo le yaa macshara qurayshina markaa andiyadoodii meelihii reer waliba ama oday waliba majliskii uu ku lahaa masaajidka iyo halkii la kala fadhiisan jiray iyagoo fadhiya ayuu labada dhagood isqabtay buu yidhi oo le qurayshay alaa ina cumara qad saba cumar diintiinii wuu ka baxay saba waxay u isticmaalaan qofka diinta ka baxay diin kala gala yacni wuxuu leeyahay cumar diintiinii wuu ka baxo kaanama uu bidcoole noqday
cumar baa isdaba taagoo le been buu sheegay ee wallaahi waan islaamay wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah saba aadan buu diidaya cumarna yani ninka diintooda ka baxay diin kala gala unba iskaga isticmaali jiray sida wuxuu leeyahay anigu diin kala gelisi ma jirtee ilaahay baan ku dhaartay waan islaamay buu leeyahay dabeetana meeshiibuu ka ashahaatay wixii naadiyada fadhiyo dhan baa soo kacay markaa dagaal baa bilaabmay cumarna wuu dagaalamay dagaalkii wuxuu socday buu cabdillaahi bnu cumar leeyahay xataa qaamat ishamsu calaa ru'uusihim ilaa ay cadceeddu kululaatay oo dadka madaxii yani cadceed kulayl baa laysla gaadhay sidii laysu dilayay markay cadceeddiina kululaatay dadkiina ka tiro batay ayuu markii dambe cumar daalay buu yidhi markaasuu iska fadhiistay ila waa magaalo dhan iyo nin qura dagaalamaya markii la isku cadceedsaday ee uu daalay ayuu iska fadhiistay buu yidhi way isdul taagan iyagoo ku xoomay oo weli la rabo in la sii dilo oo isaguna leeyahay buu yidhi ifcaluu maa badaa lakum wax allaaliya waxay idiin muuqda aniga waxba hay tudhinee sameeya faaxlifu billaahi an low qad kunna 300 rajul laqad taraknaaha lakum aw taraktumuuha lana waxaad doontaan yeela buu yidhi haynixina ilaahay baan ku dhaartay haddaan 300 oo nin gaadhnay ma ka wada deganaan mayna ama waa idinka saari ama waa idinaga saaraya saa doontaan yeela buu ku yidhi haddaan 300 oo nin helo maka ama waa idinka saaraya ama waa idinaga saari doontaaye waxba haynixina saa doontaan yeela iyadoo nabarkii sidii loogu boobayo isna sidaa leeyahay buu leeyahay wiilkii yaraayee daba socday ayaa oday dhar qurux badan sitoo xaragoonayo odayadii quraysheed ka mida baa soo baxay buu yidhi dabeetana wuxuu yidhi maa sha'nukum war waa maxay waxaan dhacay lagu buuqsan yahay waxay yidhaahdeen sabaa cumaru cumar baa diintii ka baxay bay yidhaahdeen waar balukaadiya buu ku yidhi ninkani hadduu naftiisa diin u doortay maxaa idinku ka rabtaan buu ku yidhi ma waxaad doonaysaa reer banu caday ibnu kacab waa qabiilku ka dhashay war reer hebel wallaahi baanu cumar sidaa idinkugu daynaynin haddaa cumar dishaan reer hebel unbaa isdili doontaane ma waxaad rabtaan inaad reer hebel dagaalantaan buu leeyahy yani cumar waa nin la garanayo reer hebel ninkaa inta halkaa ku dishaan idinka tegi maayaan ee ma waxaad doonaysaan buu leeya inaad reer hebel isgashaan haddaydaan rabin reer banu caday inaad la dagaal gashaan iska daaya ninkan ha diline cabdillaahi yaroo xadiidka warinaya wuxuu yidhi fawallaahi lakaannamaa kaanuu hawban kushita canhu waxaad moodaysay buu yidhi maro saarnayd oo laga rogay una inay ahaayeen markuu ninkan intaa yidhi baa dadkii ku xoonsanaa dib uga istaageen cabdillaahi ibnu cumar xadiid kaloo bukhaari ku yaalla sida uu tilmaamayo ayaa wuxuu leeyahay beri dambe aan aabbahay waxaan ka ogaaday isagu markaa dee inan yaroo waxaan dhacay uun gargaranaya buu ahaa beri dambe aabbahay wuxuu ii sheegay buu yidhi ninkii inuu ahaa alcaas ibnu waa'il isahmi ninkii la odhan jiray caas ibnu waa'il camar ninkaynu sheegayna daahiyat alcaraba aabihii weeyaan waa odayadii ugu adadkaay ee buu ka mid ahaa laakiin markan uun ilaahay cumar waa ku bixiyey caas ibnu waa'il inuu ahaa odaygii caynkan yidhina markaa dambaan ogaaday buu yidhi radulficilkii ama jawaabtii ay qurayshi ka bixisay islaamnimada cumar jawaab aada u adag bay ilaa iyo baa la yidhaahdaa waadiga makiba dad uu dareeray rabay inay cumar dilaan xadiid kaloo musnadu imaamu axmed ku suganoo sanad saxiixii waxa uu sheegaya yani inay waadiguba dad inuu noqdo iyagoo raba in la dilo sanadku wuxuu sax yahay baa la yidhaha ilaa shurayx ibnu cubayd ninka la yidhaha lakiin inta dambe waa mursal daciifa calaa kullin waxaa meesha ka muuqanaysa sida xooggan ay isugu dayayeen ama loo maki u dareentay islaamnimada cumar riwaayaadka kale tirada badan le inuu meele ugu gaban jiray qur-aanka inuu saan u dhagaysan jiray iyo inadeerkii iyo gabadha ay walaalayiin gurigooda inuu tago nabar ku dhuftay iyo kuwaasoo dhami waa qisas ku soo aroora ahlu siyar walmagaazi ay soo arooriyaan laakiin ariiq saxiixa aan ku sugmin midina waxse sii fog maaha inuu qur-aanka ka maqlo gurigaasi yani sanad ahaan un baynu leenahay ma xadiis ahaan un baan saxiina taarikh ahaan inay dhacday waa iska suurtagal wax sii fog maahana inuu cumar xejin kari waayo طaaha ma anzalna calayka alqur'aana litashqaa inuu dhagaysto oo uu xejin kari waayo uu islaamo qur-aankani ta'hiirka inuu ku sameeyaana wax fog maaha waxaynu tilmaamaynaa cumuuman un waa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu islaamkii faafinayey saxaabaduna aad ay loo dhibayey ama dhib tiro badani ay haysatay waktigaasi laakiin cumar uu islaamay waxaa muuqata cumar nin adadag inuu iska ahaa oo keligii islaamnimadiisa ninkaa quraysh oo dhan ula badheedhay
oo ku tukaday kacbada sida ibnu mas'uud sheegayana inay sababtay markii dambe in la aqbalaba inay ku tukan karaan kacbada saxaabada tani laakiin haddana waxaa muuqata uun qurayshi inay adkaysan kari weyday inay warkan sii dhegaystaan dabeetana waxaa bilaabmay go'doomin cusub iyo afkaar cusub iyo qaab cusub waxaa bilaabmay ra'yiga gaalada maanta ay dunida ku wadaan mid la mid ah waxaan la yidhahdo cunaqabatayn dhaqaale in waddan ama dad ama bulsho lagu sameeyo ayaa la bilaabay in lagu sameeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cidda taageertaba gaal iyo muslim wuxuu doonaba ha ahaadee reer banu haashim oo dhammi way taageereen gaalkoodii iyo muslimkoodiiba taasi waxay keensatay markaas in quraysh oo dhammi ay isugu tagto in qabiilka iyo muslimiinta iyo inta raacdo dhan in cunaqabatayn lagu sameeyo in sha allah halkaasaynu ka bilaabi doonaa berito wallahu aclam wabilahi tawfiiq